maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday nin doonaya in uu isku qarxiyo munaasabad ay ahlu sunna wal jamaa ay ku lahayd degmada Guraceel oo ka tirsan gobolka Galgaduud eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan ayaa waxa la xukumay nin kale oo lagu magacaabo Cali Dubad Nuur Siyaad waxaana labaduba lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan waxa ay ku eedeysay in la qabtay 23kii bishii shanaad 2019 isagoo xiran jaakad qaraxyada isla markaana doonaya in uu isku qarxiyo munaasabad ka socotay degmada Guraceel oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka galmudug halka eedeysanaha labaad Cali Dubad Nuur Siyaad oo asna maxkamaddu ku eedeysay in uu Al-Shabaab u qaabilsanaa sahminta isla markaana uu sahmiyay xaflad sidoo kalena uu xafladda keenay eedeysanaha koowaad si uu isku qarxiyo gaanshaale sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqaya xukunka labada eedeysane oo ay dacwadoodu maalmahanba ay socotay markay aragtay maxkamaddu dambe muujinta ah kow dukumeentida ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedeysane labo taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedeysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyay oo uu xirnaa eedeysanaha koowaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in kow dambiile shabaab Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan labo dambiile shabaab Cali Dubad Nuur Siyaad ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan wabillahi tawfiiq